Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan Samiira channel. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan idiin hayaa dhacdo ka dhacday Mareykanka 50 sano ka hor oo aan ilaa hadda xalkeeda la helin, lana sheegay inay ka mid tahay dhacdo ka mid ah dhacdooyinka dahsoon ee FBI-da Mareykanka ku fashilmeen. Haddaba si aad dhacdadan u maqasho dhammayso fiidiyogan ilaa dhammaadka, channelkana subscribe saar, dadka cusub tahay like, comment and share noo dheh. Haddaba waxaynu bilaabanaynaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee la xalin kari waayay FBI-da Mareykanka. Taariikhdu waa maalin Arbaco ah oo bisha November tahay 4 sanaduna waa 1971, waana maalin ka hor munaasabadda mahadnaqa ee loo yaqaan Thanksgiving oo Mareykanka looga dabaaldego 25 November ee sanad kasta. Qof aan la aqoonsan oo isku magacaabay Dan Cooper inuu magaciisu yahay ayaa madaar ku yaal Portland soo galay oo iibsaday tigidh ku raaco shirkadda diyaaradda ee loo yaqaano Northwest Orient Airlines. Weliba wuxuu isticmaalay lacag cad ama kaasha si uu ugu iibsado tigidh one way ah. Flight numberkiisu wuxuu ahaa 305. Tigidhka wuxuu siistay $20, waxaanu ka goostay magaalada Portland ee gobolka Oregon, waxaanu u goostay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee cariga Mareykanka. U fiirso hadda, sanadku waxa weeye 1971. Waqtigaa qof kasta wuxuu awood u lahaa inuu iibsado tigidh diyaaradeed isagoon baadhitaan dheeri ah marin, documents badanna laga qorin. Waa marka uu qofku isla gudaha waddanka ku dhex safrayo. Waxay la mid ahayd uun sidii qof bas raacaya oo magaalo kale aadaya. Waxaa kaloo iska sahlanayd inuu wuxuu doono diyaaradda la koro, hadday tahay hub iyo alaabooyin mamnuuc ahba isagoon la baadhin. Qalabka madaaraduna aad uma horumarsanayn, sidoo kale dhibaatooyinka argagixisada iyo mukhaadaraadkuna may badnayn waagaas. Waxaan ka hadlaynaa 1971. Magaalada Portland iyo Seattle ilaa waxay isku jireen waxaa lagu qiyaasay 30 daqiiqo ayay diyaaraddu kala socotaa sida caadiga ah. Ninkaan la aqoonsan waxaa la yidhaahdaa Dan Cooper. Sida markii dambe la ogaaday, tigidhka uu goostay maalinkaas siday u badnayd magacaasi wuxuu ahaa mid marin habaabin ah oo aanu isagu lahayn. Waxaa akhirkii la isku raacay inuu magaciisu ahaa D.B. Cooper. D.B. Cooper-kan waxaa lagu sifeeyey inuu ahaa ilaa 40 jir iyo wixii ku dhadhow. Waxa uu xidhnaa suud madow oo uu ka dul xidhnaa jaakad dheer oo jilbaha jooga, shaar cad iyo kabo bunni ah ayuu xidhnaa. Sidoo kale wuxuu luqunta ku sitaa tay madow. Hadda waa ninka dagaalka usoo diyaar garoobaya la soco. Tayga madow qisadiisa waan u soo noqon doonaaye. Marka laga tago dharkiisa uu xidhnaa, wuxuu sitay shandad samsamayd ah oo kuwa lalaadiye ah iyo baag warqad cad ka samaysan oo meel dhexaada xagga size-ka, yacni sidii nin ganacsi u socdo ayuu iska dhigay. Cooper wuxuu soo galay diyaaradda oo ahayd nooca Boeing 727, waxaanu fadhiistay kursigii tigidhka ugu qornaa ee xagga dambe ku yaalay, nambarkiisuna ahaa 18C. Ninkani markuu fadhiistay kursigiisa wuxuu iska shitay xabad sigaara, iyadoo waqtiga aan la mamnuucin jirin in sigaar lagu dhex cabo diyaaradaha. Inkastoo 80maadkii la sheegay inuu Mareykanku mamnuucay in lagu cabo diyaaradda dhexdeeda sigaarka. Cooper waxa uu ka dalbaday gabadhii ka shaqaynaysay diyaaradda inay siiso khamriga nooca bourbon loo yaqaan. Cooper waqtiga wax stress ah iyo walwal ah kama muuqan, cidina wax qaldan kama arkayn. Waa kan dee si cajaa'ib u labisan, iska qalabkiisina iska sita. Waxaanu u muuqday nin aad u degan oo hawlihiisa iska wato oo aanay ka qasnayn. Mikrofoonka dadka madaxooda ka sarreeya ee diyaaradda ku rakiban ayaa dhawaqay duuliyuhu ka soo baxay si uu dadka u ogeysiiyey inay diyaaraddu kici doonto wax yar ka bacdi. Markay 3 galabnimo saacadda Oregon marayso ayay diyaaraddii kici tintay madaarka iyadoo u jihaysanaysa madaarka Seattle. Wax kasta waxay u socdeen sidii dabiiciga ahayd ee jadwalka duulimaadyada ku yaalay. Diyaaradda dadka saarnaa may badnayn oo tiradoodu 36 qof oo rakaab ayay ahaayeen iyo dhowrka qof ee crew-ga ah diyaaradda ama shaqaalaha ka ah. Cooper wuxuu u yeedhay mid ka mid ah dumarkii diyaaradda ka shaqaynayay tii ugu dhowey isaga markaa. Wuxuu u dhiibay warqad yar oo ay wax ku qoran yihiin, laakiin waxay u qaadatay inuu shukaansi uga jeedo
oo intay jeebka iska gashatay ayay hawlaheeda iska sii wadatay iyadoon dan badan ka gelin arrinka. Markuu Kuubar arkay inayna dan ka gelin warqaddii ayuu u yeedhay. Mar labaad ku yidhi, marwo, adoo mahadsan, warqadda aan kuu dhiibay eeg, waayo shandadayda aan sito bamba weyn ayaa ku jirta. Gabadhii aan fariinsan ayaa warqaddii soo saartay oo akhriday, dabadeedna indhaheedii waxay ku dhaceen qoraalkii D. Kuubar ee sheegayay inuu bamba sito. Kuubar gabadhii waxau ku yidhi, fadhiiso kursiga igu xiga oo eeg howlaha isku qoofalan ee shandadayda dhex jiifa. Waxay aragtay shandadiisa oo ay ku cabaysantahay bambo xadhko isdhaafdhaafsani ka buuxaan oo in la is taabsiiyaa unu dhiman tahay. Kuubar waxa uu ka dalbaday gabadhii inay qorto waxyaabaha uu dalbanayo oy gaadhsiiso duuliyaha diyaaradda. Dalabkiisu wuxuu u dhignaa waata koowaadee $200,000 in loogu rido shandada dhabarka lagu qaato. Lacagtaasi waa inay ahaato mid $20 dhammaanteed ka kooban. Wuxuu labaad ka dalbaday booyad shidaal ah inay diyaar ku ahaato madaarka ay ku socdo diyaaraddu. Marka saddexaad wuxuu ka dalbaday 4 baarashuud. Marka loo fasiro saddexda shay ee uu dalbaday, waxaan ku fasiri karnaa sanadii 1970 waxay ahayd $200,000 waxay ahayd lacag aad u kuusan oo milyan iyo rubuc u dhigmi karta waqtiga xaadirkan aynu maanta joogno. Sidoo kale booyadda shidaalka waxa uu uga jeeday in diyaaraddu madaarka markay gaadho shidaal labaad lagu shubo si uu u afduubi karo hawadana in badan uu ugula jiri karo mar hadday shidaal badan wadato. 4 baarashuud waxaa lagu fasiri karaa inuu rabay haddii qofku qaldamo inuu kaga boodo diyaaradda isagoo kuruuga qaarkood si afduuban kara. Waxaana la odhan karaa waa fikrad aad u abaabulan oo uu ka damacsanaa afduubka uu samayn doono. Gabadhii markay ka bogatay waxa uu damacsan yahay, Kuubar waxay u tagtay duuliyihii diyaaradda. Waxaanay tustay qodobada 3 ah ee ninkan diyaaradda xaggeeda dambe fadhiyaa rabo. Duuliyihii isla markiiba shirkaddii lahayd diyaaradda ayuu ogeysiyey sida xaalku yahay. waa Boeing 727 diyaaraddu. Gabadhii waxay ku soo noqotay Kuubar oo sidiisii nafis iskaga ah oo aan la moodinba nin wax afduubaya oo jiidaya sigaarkii iyo khamrigii boonka ahaa. Hadda laakiin waxa uu sii xidhay muraayadda cadceedda laga xidho ee madow. Muraayadda oo gadaal ka noqotay mid sawiradiisa laga sameeyey oo dhan ka muuqata. Sidoo kale shakhsiyadiisii macno badan u sii samaysay. Lama oga waxa ku kalifay inuu diyaaradda ku dhex xidho muraayadda madow, laakiin waxay u dhoweyd inuu khatar iskaga dhigayay. Gabadhii waxay Kuubar u sheegtay inay kabtankii gaadhsiisay arrinkiisa, isaguna shirkaddii sii gaadhsiiyey. Waxaanay sheegtay in diyaaraddu duulduuli doonto madaarka iyadoon soo degin ilaa laga diyaarin doono wixii uu dalbaday. Gabadhaasi waraysiyadii laga qaaday waxay sheegaysay inay ilaa hadda ilaawi laaday ninkaas siduu isku kalsoonaa ee uu isaga fadhiyey isagoo waxaasoo dhan haddana samaynaya. Laakiin Kuubar waxa uu nin aad u khatar ah oo aadna u maskax badan, aadna u qalbi adag oo aan baqanayn. Dadka rakaabka ay ma ogeyn waxa ka dhex socda diyaaradda ilaa hadda iyo inay diyaaraddu afduuban tahay. Mana oga inuu nin qumbulad sita ama bambo dhex fadhiya diyaaradda oo waqti kasta ay qarxi karto. Sidoo kale ma ogeyn diyaaraddu waqti dheeraada lagu daray oo degitaankeedii oo ay madaarka dul heehaabayso muddo. Kabtanka diyaaraddu si aanay arrintu faraha uga bixin wuxuu rakaabkii ogeysiyey in cilad yari jirto oo waqti yar lagu dari doono degitaanka. Wax dhib ahna ayna jirin haba yaraatee. Muddo 3 saacadooda markay dul meeraysanaysay madaarka iyo nawaaxigiisa ayaa la ogeysiyey kabtankii inuu soo degi karo. Wuxuu ninku dalbadayna oo dhan la diyaariyey. Kuubar waxuu ka dalbaday kabtankii inuu diyaaradda ku baakin gareeyo meel aad uga fog diyaaradaha kale. Waxa kaloo uu amray in la wada xidho daaqadaha diyaaradda. Kuubar wuxuu maskaxdiisa ku sii hayay inay dhici karto in FBI-da Mareykanku meelaha ka soo toogan karaan isagoo diyaaradda dhex marmaraya. Runtii nin aad uga sii baaraandegay ayuu ahaa, wax kastoo dhici kara. Kuubar waxaa loo diyaariyey wixii uu dalbaday oo ahaa $200,000 iyo 4 baarashuud iyo booyaddii shidaalka oo diyaaradda hoos timid. Marka uu isku hubsaday wixii uu dalbaday ayuu ooda ka soo qaaday 36 qof ee diyaaradda ku dhex qafaashay. Waxaana diyaaraddii ku hadhay isaga iyo shaqaalihii diyaaradda oo kaliya. Kuubar wuxuu amar ku siiyey duuliyihii inuu u duulo xagga iyo Mexico
isagoo diyaaradda ku duulinaya joog hoose oo ah 10,000 oo fud iyo inuu speed gaabinaya ku wada diyaaradda. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa inaan rag intaad ku maqantay isaguna uu kugu maqan yahay. FBI-da Mareykanku iyaduna dhinaceega ayay diyaar garow ka gashay oo labada diyaaradood ee F-16 ah ayay ka daba duuliyeen. Diyaaradahaas iyo diyaarado hore oo diyaaradii hore ay saarnaayeen Kuubar iyo oo masaafo u dhaxayso si aan loo arkin. Waxa sidoo kale sii caawinayay inay habeennimo ahayd iyo jawiga oo roobana waqtigaas. Markaa ma ogeyn duuliyaha diyaaradda Kuubar saaran yahay in diyaarada ka dambeeyaan isaga baacsanaya. Markay 8 habeennimo marayso ayuu Kuubar amar ku siiyay shaqaalihii diyaaradda ee gabdhaha inay galaan qolka laga wado diyaaradda ee duuliyuhu fadhiyo. Waxaana ku soo hadhay diyaaradda qaybteedii rakaabka isaga oo kaliya oon cidi wehelin haba yaraatee. Markay diyaaraddu waxoogaa duulaysay ilaa 10 daqiiqo kadib wuxuu dareemay duuliyihii digniin ka imanaysa diyaaradda systemkeeda oo sheegaya inuu albaabka dambe isfuray. Sidaynu soo sheegnay diyaaradda nooceedu waxa uu ahaa Boeing 727 oo albaabkeeda dambe gudaha laga furi karo si salaan dibadda u baxa loo dejin karo. Waqtigaa diyaaraduhu may ahayn qaar ammaankoodu aad u adagay ama qaabkay u samaysan yihiin mid kantaroolan uu yahay. Markii duuliyuhu arrinkaa ogaaday ayaa shaqaalihii u soo noqdeen xaggii rakaabka loogu talagalay. Ninkii Kuubar oo diyaaraddii ka booday ayay arkeen oo haawanaysa diyaaraddii. Waxay heleen 2 baarashuud isagoo ka tegay meesha la odhan karo Kuubar wuxuu ku dul degay waxay ahayd kayn weyn oo u dhaxaysa Seattle iyo magaalada la yidhaahdo Reno ee gobolka Nevada. Kuubar qisadiisa ugu cajaa'ibsan barta ay ka bilaabanaysaa waa halkan haddaba. Isagoo la xallin kari waayay siduu u booday iyo meeshuu ku dambeeyay iyo wuxuu ahaa isla isaguba. Arrintii FBI way xallin kari weyday laga soo bilaabo 1971 ilaa maalintan maanta oo 50 sano ka soo wareegtay. Waxaa laga sii yaaban yahay sida ayna u ogaan xataa diyaaradihii daba socday diyaaradda uu Kuubar afduubtay. Inkastoo la odhan karo habeennimo iyo daruuro badan iyo roob ayaa u sabab ahaa inaan la arag markuu ka boodayay diyaaradda. Markii ay diyaaraddu ku degtay airport-kii ayay FBI-du gashay diyaaraddii iyagoo gebi ahaanba baadheen diyaaradda iyagoo daydayaya Kuubar ama wax raada ka tegay. Raadka kaliya ee Kuubar ka tegay waxa uu noqday taygii madoobaa ee luqunta ku xidhnaa. Lama garan karo waxuu iskaga bixiyay tayga, laakiin waxaa la odhan karaa markuu baarashuudka xidhanayay ayuu taygaasi cirib dhowray dabadeedna uu iska tuuray. Tayga waxaa laga heli kari lahaa DNA-dii Kuubar haddii cilmigan shaybaadhku gaadhsan yahay halka uu maanta joogo. Taygii meel bay iska dhigeen FBI-da Mareykanku, laakiin sanado dambe markii cilmiga shaybaadhku soo kordhay ayay arrin kale ogaadeen oon u soo noqon doono goordhow. FBI-da Mareykanka waxay bilowday inay Kuubar ka baadho kayntii diyaaraddu duulaysay markii uu booday. Waxay aaminsanaayeen inaanu Kuubar booditaankiisa ku badbaadin habeenkaas waayo jawiga aad ayuu u xumaa meeshuna kayn jiqa ayay ahayd. Dhowr maalmood markay kayntii ka dhex baadheen iyo nawaaxigeedii waxay xaqiiqsadeen inaanu meeshan raq iyo ruux midna Kuubar joogin. Intaa wixii ka dambeeyay waxay FBI-du bilowday inay weeraystaan dumarkii diyaaradda ka shaqaynayay ee la tacaamulay Kuubar habeenkii uu afduubay diyaaradda. Waxaanay bilaabeen inay sawiraan qof uu eeg yahay qofkay ka sheekeeyeen. 2 gabdhood ee shaqaalaha ka mida waana sawirkan idiin muuqda. Ninka 40-yeeyada ah ee muraayadda madow xidhan ee dhererkiisu yahay 180 centimeter miisaankiisuna ku dhow yahay 80 kg ama 80 kilogram. Indhihiisuna bunni ayay ahaayeen. Lahjadiisu way ka yara duwanayd lahjadda Mareykanka, laakiin nin aad u degan ayuu ahaa siday sheegeen. FBI-du lacagtii la siiyay Kuubar lambaradeeda oo dhan ayay meel ku qoreen intii aan la guddoonsiin, waxaanay wada ahayd $20 oo miidhan. Waxaana la wada ogeysiiyey bangiyada Mareykanka oo dhan lacagta noocaasa ciddii sidata in lasoo sheego. Lacagta raq iyo ruux meel ay martay waa la waayay iyo cidda sidata ilaa 1980kii laga soo gaadhay oo ah 9 sano ka bacdi dhacdadii afduubka diyaaraddii Boeing 727.
haddaba wiil yaroo webi agtiis fadhiya oo dhulka iska qodqodanaya ayaa helay 3 xidhmo oo lacag $20 wada ah, tootalkeeduna isku yahay ilaa 5,800 ilaa 6,000 oo dollar. lacagta badankeedu wuu duugoobay oo may ahayn lacag la isticmaali karo. lacagtii markii FBI-da gacanta loo soo geliyey waxay ogaadeen inay lacagtani tahay tii Cooper la siiyey habeenkii, iyadoo lambaradeedu la mid noqdeen kuwii ay wadatay lacagtaasi. wiilka yar waxa uu lacagta ka helay meel webi ah oo la yidhaah Tina Bar, isaga iyo aabihii halkaa kaambin u yimaadeen iyo inay u yara hoydaan. meeshan uu wiilka yari ka helay lacagta way ka fogeyd kayntii Cooper laga dhex waayey ee uu habeenkii kusoo dhex tegay. dad baa leh DB Cooper isagaa ku aasay meesha lacagta, qaar kale waxay yidhaahdeen lacagtu webiga ayay soo raacday oo meesha ayay ku aasantay. waynu kasii sheekayn doonaa siday arrintani u dhacdee 1980 ilaa 1970 waxaa u dhexeeya 9 sano, waxaana soo baxay waxyaalo badan oo isa soo taraya oo ku saabsan dhacdadii DB Cooper. isla sanadii 72kiiba waxaa sheegtay inay yihiin DB Cooper kala raadinayay dad fara badan oo raba inay kusoo shaacbacaan arrinkiisa. dhacdadan oo aad loo qaadaa dhigay berigaas ayaa ku kaliftay inay dadyowgaas sheegteen inay yihiin ninka. FBI-du baaritaankeeda markay gashay waxay ogaatay in dadyowgaasi been sheegayaan ooyna ahayn DB Cooper. 5tii sane ee ku xigay dhacdada waxay gaadheen dadkii sheegtay ilaa 800 qof oo mid kasta si gaar ah u sheeganayo, waxaana ka mid ahaa qaar yidhi jaarkayaga ayuu ahaa iyo mid yidhi walaalkay ayuu ahaa. 800 qof waxaa laga soo reebay 24 qof oo keliya oo runtii aad looga shakiyey warkooda. qaanuunka Mareykanka beriga wuxuu dhigayay in qofka diyaarad afduuba haddaan gacanta lagu soo dhigin 5 sano gudahood in dembigu ka dhacayo oon lasii raadsan doonin. laakiin beriga ayaa dib loogu noqday sharciga oo la bedelay Cooper awgiis, taasoo macnaheedu yahay haddii maanta oon joogno 2021 la qabto DB Cooper in maxkamad la soo taagayo. ilaa maanta lama hayo DB Cooper oo waa qadiyadda keliya ee FBI xallin kari weyday sidaynu soo sheegnay ilaa maanta, ilaa maalinkaas. ilaa hadda lama garanayo sida loogu magacaabay DB Cooper isagoo loo ogiyey Dan Cooper waa magacuu sheegtay markii u horreysay inuu ahaa magacii ku qornaa tigidhkii uu goostay ninkaasi. waxaa laga yaabaa in FBI-da Mareykanka markii ay waraaqaha isweydaarsanayeen in mid ka mida qalday magaca oo uu sidaa uu ku baxay cidina ayna ka daba tegin sixitaankiisa. hadda aan eegno dadyowgii sheegtay inay DB Cooper yihiin, inkastoo midna aanu noqon DB Cooperkii saxda ahaa. haddaba daawade kommentiga noogu reeb kaad u malayn karto inuu yahay DB Cooperka saxda ah. aanu ka bilowno ninka ugu horeeya ee sheegtay inuu yahay DB Cooper, ninkan oo lagu magacaabo Richard Floyd McCoy. ninkan iyo DB Cooper aad ayay iskaga shabahaan xagga afcaasha. McCoy waxa uu afduubtay diyaarad taariikhdu markay ahayd bishii Afraad 7deedii 1972, yacni 4 bilood kadib markii DB Cooper uu afduubtay diyaaraddii B727. sida uu McCoy u afduubay diyaaradda iyo siduu DB Cooper u afduubay diyaaraddii kale aad iyo aad ayay isugu ekaayeen. isla noocii DB Cooper uu afduubay oo kale ayay ahayd diyaaraddu. markay diyaaraddu garoonka ka haaday ayuu gabdhaha ka shaqeeya diyaaradda dhexdeeda mid ka mida u yeedhay oo uu tusay inuu qunbulad sito, waxaanu ka dalbaday $500,000 halka uu DB Cooper ka dalbaday $200,000. sidoo kale McCoy waxa uu dalbaday 4 baarashuud diyaaradda xaggeeda dambena uu ka booday markuu afduubkiisa dhammaystay. keliyaata waxay ku kala duwanaayeen in uuna McCoy taxadar uu samayn sidii DB Cooper. ninkani meel kasta faraha ayuu ku taataabtay oo FBI-du waxay heleen raadkiisii iyo haybtiisii isla markiiba. waxaan oran karnaa McCoy waxa uu ahaa nin ku dayanaya DB Cooper oo aan wax hiba u lahayn afduubka iyo raadgadashadaba. 2 cisho gudahood ayaa McCoy lagu soo xidhay. waxaa lagu xukumay McCoy 45 sannadood oo xadhiga. dadka qaar ayaa yidhi McCoy iyo DB Cooper isku qof ayay ahaayeen, laakiin FBI-du baaritaankeeda kumay sheegin in labada nin isku mid yihiin. waa run inay aad isugu muuqaal dhawaayeen, laakiin McCoy markii dib loo raacay dhaqdhaqaaqiisa
waxaa la ogaaday inuu ciidda mahadnaqa ee Thanksgiving-ka la yidhaah oo ahayd maalintii ka dambeysay afduubkii DB Cooper inuu McCoy joogay gobol ka fog isla gobolkii afduubku ka dhacay. Yacni maalintii afduubka ku xigtay waxa uu McCoy iska baashaalayay ama la baashaalayay ehelkiisa. Marka arrinkaas ayay FBI-du u codsatay inayna labadan nin isku mid ahayn. McCoy oo 45 sano lagu xukumay muu dhammaysan xukunkiisa isagoo isku dayay inuu ka baxsado jeelka isla markaana ku dhintay rasaas ay isweydaarsadeen ilaaladii jeelka. Aan u nimaadno ninka labaad ee sheegtay DB Cooper inuu yahay. Ninkan waxaa la yidhaahdaa Dwayne Waber. Waber isna waxa uu sheegtay inuu yahay DB Cooper isagoo xanuunsanaya oo jiifa sariirtii ku dhiman rabay 1995 oo ah 25 sano kadib DB Cooper markuu afduubtay diyaaraddii B727 ee ka kicitimaysay Oregon una kicitimaysay Washington. Xaaska Waber oo la odhan jiray Joy Waber ayaa tiri ninkaygu markuu sii dhimanayay ayuu dhegta igu sheegay inuu yahay DB Cooper. Sidoo kale intaanu xanuunsan ka hor wuxuu ku hadli jiray isagoo hurday inuu raadkiisii kaga tegay diyaaraddii B727 ee la afduubay berigii. Waxaa kale oo uu sheegi jiray inuu jilibka ka caban jiray oo uu odhan jiray waxaan ka dhaawacmay markaan diyaaradda ka booday habeenkaas. Waxaa kaloo ay sheegtay xaaskiisu inuu ninkeedu u kaxeeyey meesha la yidhaah Tina Bar oo ahayd meeshii webiga ahayd ee laga helay waxoogaaga lacagta. Waxaa kaloo ay sheegtay inay hayn jirtay tigidh duug ah oo ay leedahay shirkadda Northwest Orient Airlines oo ahayd isla shirkaddii lahayd diyaaraddii uu DB Cooper afduubay. Sidoo kale ninkeedu waxa uu ahaa nin askari ah oo ka soo qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uu yaqaanayay sida loogu boodo baarashuudka. Sidoo kale waxay sheegtay inuu dhowr goor jeel galay isagoo ku eedeysan wax isdabamarin iyo forgery. Sidoo kale Dwayne Waber iyo DB Cooper aad ayay isku shabahaan xagga muuqaalka. Aad ayay FBI-du ugu mashquushay ninkan si weyna way uga shakiyeen inuu isaga yahay laakiin weli ma helin wax daliila oo si dhib ah u sheegay inuu yahay DB Cooper-kii saxda ahaa. Aanu gudubno eedeysanaha saddexaad oo la yidhaahdo Kenneth Christensen. Ninkan qisadiisu waxay kaga duwan tahay qisooyinka kale. Raggii sheegtay inay yihiin DB Cooper inuu Kenneth-kan walaalkii oo la yidhaah Lyle Christensen u sheegay markii walaalkii dhintay kadib inuu ahaa DB Cooper la raadinayay. Ninkan oo 1994 u dhintay kansar ayaa maalintuu sii dhimanayay ayuu walaalkii ku yidhi niyow sir ayaa jirta oo weligay hayo oo aan rabay inaan sheego laakiin waxay naftu ka baxday isagoon u sheegin wuxuu ilaa weligii hayay ee sirta ahaa. 2003 ayuu walaalkii daawaday documentary laga diyaariyay DB Cooper waxaanu naftiisa ugu sheekeeyey inuu walaalkii yahay DB Cooper la raadinayay isagoo sirtii walaalkii la dhintay u fasirtay arrinta Cooper. Haddaba muxuu ugu maleeyay walaalkii inuu yahay DB Cooper? Taas ay isweydiin leh. Waata koowaad walaalkii wuxuu ka shaqayn jiray intaanu dhiman ka hor shirkadda diyaaradaha ee Northwest Orient Airlines. Laba Kenneth waxa uu jeclaa khamriga, boorbanka iyo sigaarka. Waata saddexaad sidoo kale wuxuu iibsaday guri aad u qaali ah oo dhowr bilood kadib waqtigii uu DB Cooper afduubay diyaarad oo loo fasiri karo inuu isaga ahaa lacagtii ku iibsaday isla guriga. Waata afraad gabadh ka shaqayn jirtay diyaaraddaas ayaa la tusay Kenneth sawirkiisa waxaanay ahayd gabadh isla diyaaradda ka shaqaynaysay habeenka. Gabadhan waxay aad ula yaabtay Kenneth iyo DB Cooper sida aadka ah ee ay isugu eegyihiin waxaanay tidhi ninkan aad ayuu ugu dhow yahay nimanka kale ee sheegtay inay yihiin DB Cooper. Waxay sheegtay gabadhaas inaanay ku adkaysan karin inay tidhaa waa isagii. Adigu aakhirkii Kenneth way ka saareen liistadii dadka loo raadinayay DB Cooper waayo wuu ka gaabnaa dhererkii DB Cooper lagu qiyaasay. Sidoo kale Kenneth waxa uu ahaa nin aad ugu ba'an ku boodidda baarashuudka oo askari ahaa. Waxaana FBI-du sheegtay inaanu DB Cooper ahayn nin aad u garanayay ku boodidda baarashuudka. Kaasina waxay meesha ka saartay inuu Kenneth yahay DB Cooper-ka lagu raad joogay ilaa maanta. Waayo waxay FBI-du sheegtay inuu DB Cooper habeenkaa doortay 4 baarashuud, 2 ugu liitay oo uu ka tegay 2 ugu fiicnaa. Waayo waynaga soo sheegnay inuu 2 ka tegay. Sidaa awgeed hadduu Kenneth kani ahaa
ahaan lahaa DB Cooper, waxa uu dooran lahaa nooca fiican ee baarashuudyadii lasoo hordhigay. Ninka afraad ee ku eedeysan inuu ahaa DB Cooper waxaa la yidhaahdaa Robert Registro. Ninkan afraad weli waa nool yahay ilaa maanta. Ninkani waxa uu duuliye diyaaradaha helikabtarka, waxaanu ka qayb galay dagaalkii Vietnam, waxaanu yaqaan wax qarxinta iyo baarashuudka boodidda. Waxaa laga eriyey ciidanka Mareykanka isagoo lagu eedeeyay been iyo habdhaqankiisa wax yar ka hor waqtigii uu DB Cooper afduubtay diyaaradda. Waxaa loo daliishan karaa inuu arrinkan ku kici karo isagoo shaqadiisii laga eriyey oo xaaladiisii nololeed aad isku beddeshay. Sidoo kale, marka suxufiyiintu wareystaan ee ay weydiiyeen inuu yahay DB Cooper, jawaab saxa muu siin jirin, isagoo odhan jiray waa laga yaabaa inuu yahay aniga amaba ma yihiba isagii. Waxa rasmi ah oo ku caddaaday waa la waayay Robert Registro. Haddaba FBI-da Mareykanku 2016 ayay si rasmi ah u xidhay faylkii DB Cooper. Isku soo duubo, waxaan oran karnaa inaanu DB Cooper habeenkaas badbaadin oo uu ku dhintay shil ka dhashay boodidiis. Waxaana qaba ra'yiga dambi baadha Mareykan oo la yidhaahdo Larry Carr oo FBI-da ka tirsan 2017 sheegay inuu DB Cooper ahaa qof aan aad u garanayn noocyada baarashuudyada iyo adeegsigooda. Sidoo kale waxa uu booday buu yidhi waqti jawigu cakiran yahay oo dabaylo iyo roobab jiraan oo qof baarashuud goosanaya aanu doorteen. Koodh weyn oo culus ayuu xidhnaa. Sidoo kale shandad weyn oo lacag ah ayuu xambaartay. Waxaasoo dhammi waxay keeni karaan inuuna si fiican u kantarooli karin baarashuudka. Lacagtii 3 xidhmo ahayd ee la helay waxaa loo fasiray in webigu soo qaaday, inkastoo haddana la ogaaday inaanu webigu qaadi karin oo dhanka kayntii ku taalo, yacni waa kayntii uu ku dul dhacay baa la oran karaa, iyo dhanka uu webigu u socday aana islahayn. Lacagta la helay oo ahayd 5,800 oo ah in yaroo ka mida $200,000 ayaa baaqigii aan raq iyo ruux toona la arag meel ay martay, iyo ninkii sitay oo aan raq iyo ruux lahayn ilaa maalinkan maanta. Webiga loo filayo inuu ku dul dhacay DB Cooper ayaa ah webi aad u dheeraynaya oo ku shubay badweynta Pacific-ga ama Maxyadil Haadi badda loo yaqaan. Waxaana aad loogu fasiri karaa inuu DB Cooper ku dambeeyay badweynta. Arrintan ayaa arrinta kaliya ee afduubka diyaaradaha ku saabsan ee FBI-du ku fashilantay inay soo ogaato cidda geysatay ama gacan ku soo dhigto qofka galay faldambiyeedkaas. Intaynaan xidhin sheekada DB Cooper, ma xasuusataan taygii madooba ee uu xidhnaa DB Cooper ama kaga tegay diyaaradda? Waynu soo noqonaynaa. Beri dhaweyd ayaa la baadhay markii cilmigu horumar sameeyey, waxaana laga helay macdan yaryar oo loo isticmaalo samaynta diyaaradaha shirkadda Boeing 727 oo ahayd shirkaddii uu afduubay diyaaraddeeda, taasoo loo yara daliishan karo inuu ahaa nin ka shaqeeya diyaaradahaas. Laakiin may noqon daliil rasmi ah oo la odhan karo waxa uu ahaa nin ka tirsanaa shaqaalihii shirkadda. Saaxiib eel dhacdadii DB Cooper halkaas ayaynu inaguna ku soo xidhnay. Sidaynu hore u soo sheegnay, adiguna commentiga nagula wadaag cidaad u malaynayso DB Cooper-ka saxda. Aad baad mahadsantihiin. Inta aan ku kulmi doono fiidiyowga xiga, waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.